رحيم halkan waxa ka hadlaysa adeega Yaasin Caraale Axmed waxaan u sheegayaa dadweynaha adduunka daafiisiyada caladiisa jooga albaab kasto reer Sheekha waan garaacay bay tiri intaasoo reer Sheekha ayaa maanta galabta halka taagan albaab ay garaacday maxkamadda Hargeysa ka tiri albaab ay garaacday oo reer Sheekha oo ku yiri nimcay lagu ma dhalin been bay ku sheegtay محكمة عائلة أديك ميمن هلا يسوق قبته ده وإحنا ما ندري وإحنا ما نحدين ندور بقى كيلاق ده البي مركه هرب دعني قايل ولا شيء أنا لقى قادر ديجي يدين ديجي هيدا السلاح إمي كان عنك هالكيبان تاجنا هاي ديجي هيدا السلاح دي أربعة وهاي لا هذا ما قرتي أنا قف الله الرحمن كاكو حدن بانهاي يا الله الرحمن كحقنا وان كنت أجناي حقي والد كيبان الهادين إياه قاري نقطنا حق بان كنت أجناي نمعه رانا وان وقول إسلامك أدون كدافي سيد على دي سوحي ومتوقتي أنا يراعدي حق يجوشنا أنا يسوع ينسى حدي الله كديجو سيدا نمعها قصة مرتق دمان ددوينها هير شيخ هوين كار هير شيخ هالكا فرديا waxa ay galabta isugu soo baxeen oo ay halka isugu yimaadeen dad qadiima oo qadiim sheekh ku ah oo ku culus oo la yiraaho reer Yaasiin Caraale ilma Caraale yibir oo nimca Yaasiin Caraale iyo adeega Yaasiin Caraale oo ay adeegi naga dul oyday oo ay leedahay walaashay waxay tiri Caasha Diiriye ima dhalin Caasha Diiriye Axmed iyo Yaasiin Caraale yibir halkan waxa maanta aanu ku wadnaa goobjoogii dhalashadii nimca Yaasiin Caraale qaafa Maxamed Samakaab oo arkaysaan da'deeda iyo wajigeeda ay ag fadhida ayaa ugu horeysa umushii ay ku booqatay Caasha Yaasiin anagoo biyo loo shubayo ayaa dumari yimaadeen waa yidhaahdeen waxa umushay Caasha Diiriye Samatar wax loogu qasaaray baa la waayay biyihii baan u kaxeeya markii aanu qadooyinkii karsanaanu u tagnay waxayna tidhi yaa Caasha iska waran waxayna tidhi ooyo nimca Ilaahay baan ku jiraayo nimcaan dhalay waan fool badin jiraayo nimcaan hooyo dhala waxaan garanayaa iyadoo 3 jir ah ama 4 sano uga gashay oo hooyadeed xambaarto jaarna waanu hayno in yar baan isu jishay oo ay daadahaynayso oo ay sido ayaan anagu garanay waxa weeye adeega Yaasiin iyo nimca Yaasiin iyo Cawil Yaasiin walaalay ahaayeen aabahood halkaas biraha ugu timi jiray Caraale yibir buu hayo nin caano la yaqaan buu hayo caan loo yaqaan buu ahaa saddex caruur oo dad dhintay kala dhixiyeen isku dhalashay xigay hay'adon gabadhaas waa bay qaadi jirtay walaasha dabtay ku hayn jirtay markay shaqaysay way ogeyd adeega annaguna dad saaxiiba baan ahayn nimca Yaasiin oo isku wanaagsan baan ahayn reerkooda way ku faani jirtay qabiilkooda way ku faani jirtay kamay xanaaqi jirin qabiil kale hadda ku sheegto nimca Yaasiin waxay oran jirtay maxaad yeesaysaa reerka jiray aan jiray baan ka dhistay muslimka baan ka dhashay maxaad yeesaysaa maxaad dhaantaa bay oran jirtay haddaba nimca Yaasiin malaade waa la meedo waxaan u malaynayaa hooyadeed iyo aabaheed wax adduunka ka jeclaa lama ogeyn iyana way jeclaayeen waxaan nimca Yaasiin meeday ayuu tiri Yaasiin iyo Caashimay dhalin ta kale ee labaad beenta kale sheegtay tiri sheekh baan albaab kasta garaacayo dadkii qof isheega waan waayay nimcooy Ilaahay u soo noqo oo waalidka u soo noqo oo dadkii ku garanayay waa kuwa cadeeyay imka maxaan ku dhahay tii biyaha lagaaga soo qaaday biyihii maxaan ku dhahay dararta lagu meeydayay waa taas way nool yihiin in kala badanna way nool yihiin shaashada la dhex qaadayaan nimcooy Ilaahay toobadkeena waalidka u soo noqo ka istaghfirlaysa dambiga aad gashay anigu inuu baan odhanaya waxa weeye nimca Yaasiin annagu dadkii dad ugu xigay baan ahayn albaabadan ay leedahay waan garaacayna nimco been bay sheegaysaa may garaacina naba noomaadna miyaad noo timi nimco dadkii dadku ugu xigaanahay miyaad noo timi Cadar Maxamed Cilmi baan ahay noomanaadiman been baad sheegaysaa bisinka qabso Ilaahay ka yaab kan waxaanu ku cadaynaynaa shir saxaafadeedkan ku qabanay nimca Yaasiin Caraale Axmed oo gabadh deegaanka sheekh u dhalatay oo nu aad u jecelay marka hore nimcay waanu ku salaameynaa waanu ku jecelay nimcay maantana waanu ku jecelahay waxa weeye nin baa yidhi abtirsiima ma gurto Salebaan Arab weeye ina Yaasiin Caraale Axmed baa aad tahay Caasha Diiriye Samatar baa ku dhashay nimcooy dadkii waaweynaa iyo dadkii maalimka qadiimiga ahaa intiiba waa kuwaasoo way marag fureen Xabiiba Jaamac Cilmi oo iminka Hargeysa joogtood garanaysaa maalintii aad timi sheekh aad timi dawaad ogay markaad oyday ay kulahayd nimcooy ehel baynu nahay akhwaan gaaraynu nahay
ardaagii hooyada anaa kuu sii fadhiyey haddaan lagu soo dhaweyn miyaa lagu dhaafaya fargal dahabaad farxaddii ku bixisa nimcooy waanu ku jecel lahay marraa waaxid noo soo noqo baanu ku leenahay walaashaana ha ka oohinin noo soo noqo reer sheekh aad bay kuu jecel yihiin nimcooy waraxmatullaahi wabarakaatu anigu waan yaabanahay yaab ayaan ku maqanahay waxaan la yaabanahay waxaan ahay anigu ardaydii nimco yaasiin ay soo barbaarisay ee ay iskuulka u dhigi jirtay nimcooy weli waxaana ilaaway sixii sidaa intuu u dheeraa dabadu saa u soo qabyoocay ayaan kugu xusuustaa wanaagaagii baan kugu xusuustaa qofan jecelay baad ahay qof wanaagsan baad ahay qof lixina baad ahay anigu mar walba adeega waxaan ku dhahaa nimco malaa si kale noqoto dadka yaaban baanay waayo wanaagaagii ma garanaysaa markii aad na bari jirtay waxa kacaankaanu ahayn eed heesaa na bari jirtay ma xusuusataa eed heesihii na bari jirtay sida wanaagsan sida jacaylkaad noo qabtay wanaagaad magaalada u qabtay jacaylkii laguu qabay ma tihid gabadh dhalashadeeda dafirtaa waxaan ku leenahay ilaahay ka baqo walaasha adeega xaq bay ku taagantay anigu imika gabigayguba saasaan u galiiliyoonaya waxaan la yaabanahay oo yaabaan ugu maqanahay nimcay waxa ku bedelay ilaahay ka baqo soo noqo waa lagu jecel yahay qofku wuu qaldamaa biniaadankii waad qaldantay shaydaanka iska naaro shiikh noogu kaalay gamca furan baan kugu soo dhawaynaynaa sidii aan kugu soo dhawayn jiraan kugu soo dhawaynaynaa soo dhawow nimcooy waanu muraaqoonaynaa nafti baan hayso waa yaabanay nimco yaasiin hooyaday saaxiibadeed bay ahayd qofaan garanayaa bay ahayd ku garaadsaday bay ahayd ku caqliyaystay bay ahayd idaadahayn jirtay bay ahayd hooyadayna la saaxiib ahayd nimco yaasiin ilaaheedii abuurtay ha ka baqato oo ha u soo noqoto walaasheed iyo waalidkeeday ceebaysayba ha u soo noqoto anigu ina yar baan ahaa iyaday kaxaysan jirtay waa ta adeegeen 5 tallaabaan isu jiraa labada iyada guri dadkana way noogu jeclayd iyadana waa noogu jeclayd yaasiin caraala dhalay yaasiin caraala axmed baa dhalay caasha diiriye samatar baa dhashay dad taaro helabaanu ahay habeenkana leeriyay riwaad ii kaxaysato aqalkoodaan seexanayay yaasiin iyo caasha dhalay inay gaftana xaq ma aha awowgay xaaji jaamac iyo aabaheed awowgayna wuxuu miisi jiray maxaadadu iibin jiray aabaheedna biruhu tumi jiray iyaalka marka noo beysteenka ka doonana waan ka soo furan jiray nimco anigu si aan ummadda kaleba u garanayn baan u garanay dadka waaweyn mooye dadka yaryar nimco walaashayabay ahayd walaasheed baanu la hadlaynaa walaasheed ay dafiraysay ooyeysa habeen iyo maalinba ooyeyso nimco ha u soo noqoto walaasheed iyo aabaheed iyo hooyadeeda qabriga ka kicinayso ay tiri imabay dhalinay u xambaarisay nashaxadda nimco ay ka soo noqo walaalo waadiga cabdiraxmaan cabdi maalintii u dambeysay ku yidhi adduunyada inanta ayara gaasga joog baan jecelay cabdiraxmaan oo ma nooshahay waxa weeye nimcooy ummadu waa wada caynka qof walba qofkii u yaqaanay wuu u yeedhaya na walaal toobadkeen oo ilaahay u toobadkeen oo islaamka u toobadkeen oo walaasha u toobadkeen oo walaasha oo inta aad ka hoysatay mabay dhan reeraan ku dhalaa dalbatay nimco waa macallimadeedii waana gabadhii ugu horreysay ee iskuulka uulada ay qortay standard 1-ka nimco yaasiin caraale aad buu u jeclaa break timeka maalmaha ka mida waxay tiri horena waanu sheegay ordayad iyo Saynab Cali Xuseen oo wada fadhiya iskuulka qasabka hortiisa ay tiri ord saytuun iyo doon oo dhidu weerax xataa saytuunkii dareysoo dhib waa soo qaaday nimco wax gabadhii ugu tiri bay ahayd na magaca Musaan Faadima Sahra sidii kala reeb labada magac oo mid uu la bax nimcooy shaydaanka iska naar bisinka qabso awliya ilaahay awliya tasaalixiina ayaa ku dhashay yaasiin caraale mu'min buu ahaa umana qardoobo loo mana quuri kara yaasiin caraale in la yiraahdo tuug buu hay wax buu soo xad nimcooy 80 jir baa tahay cimri tagayna ceeb laguma sagootiyo anigoo duuladay qortay ayaa 50 sanadood madaxa la galay adiguna hadalkaaga badaa nimcooy way joogaan ilma kaahin faras way joogaan ilma liibaan yare way joogaan ilma yaasiin yare way joogaan asxaabtii sheekh oo dhami bal cidaad u timi ee ku tiri nimco garan mayna maalintay dhalatay hal hele sheekhkee dawladda Soomaaliland waxaan leenahay maxkamadaasi inanta dhiyanayga waa u diyaar maalinta Shabcaan maanta waa 30 maalinta bisha Ramadaan dhamaatay 6 Shawaalka laga soo noqdo mawduucu uu daayo adeega yaasiin anagoo galbinayna ayaanu maxkamadda keenaynaa nimco horta diyaar garowyo waa ta koobaad sheekh way ka go'an tahay taasi waa ta labaad nimco yaasiin waxaan u sheegaynaa waxay tiri waa loo yeeray haddaad bajad iyo lacag isticmaalayso ilaahay wajgiisa ayaa adeeg isticmaalaysa annagaana garab taagan mana la waayayo xaqa ilaahay dulmiga ma qaado xaquna wax qarsooma ma aha nimcooy haddaan yaasiin caraala ku dhalina halkaasaad ka bixiyo waa laga waayay dawladana waxaanu leenahay labada ruux ee kala laalaada hal la kala furto oo dawladdu cadaaladda
هجيسو هو كلا قاعدة ديجا تدلنا نمعه قلنا الشيء جيسها النقطة مركزان يسلون